السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي رسول هذا ما أنت هدي الله إدمو وحنك شكلين دونا قابكي عادو حريصان لهايدين scholarship كلو يقانو تشيفينينكا scholarship كان إنجليز كابحية ضد بدن ويهلان ضد بدن ويوايان لكن waxaan isleeyahay in maaragtay ay isku daydaan oo xareysataan kaas kaliya ma aha waxa jira scholarships tira badan oo xareysan kartaan oo heli kartaan ama way kartaan laakiin haddaadan isku dayin oo hal meel wali ay iska joogtid waxa wanaagsan in aad xareysatid isku daydid marka qaybtan waxaan ku tusi doonaa min bilow ilaa dhamaad saa ku xareysan kartid iyo tibiska maaragtay ku jirjira gudihiisa iyo waxaas oo dhan waxaan rajayn doonaa maaragtay qof walba waxa ka dhiman hadda xilli yar oo kooban laakiin sanad walba waa la furaa dad baa ku guuleysta Soomaaliya iyo kuwa Soomaali ah labadaba marka dhamaanteen isku dayno xareyno waxaa jira maaragtay scholarships badan marka oo maaragtay la soo geliyo websites badan oo dad ay ka sameeyaan lacag inagu marka just waxaan nooga baahanaan Google ka browse garayno Google ka baarno apply garayno waxaan isku dayi doonaa marka waxyaalaha muhiimka ah ee scholarships ka looga baahan yahay dhan inaan maaragtay ay soo ogeysiyo iyo kuwa la apply garayn karo kuwa iska fudud marka kanna qof kasta maanta ha bilaabo ha buuxbuuxsado ha apply garayo nasiibkiisana ha ka qaado saaxiibayaal markood waxa sameynaysaan Google ka soo galeysaan waxaad raadinaysaan Achieving Somalia bahanahay waa kan maadaama Soomaaliya joogno ama aad passportkaagu Soomaali yahay saasa sameynaysaa kadibna markii saa ugu dhufono waa arkaysaan kana inoo soo baxaya halkaas waxaan tegaynaa halkan apply today halkan aan gelayaa markaan halkan apply dhaho register here ayaa ku dhufanaysaan marka halkaas iska diiwaan gelinaysaan waa arkaysaan register here ayaa ku dhufanaysaan marka barnaamijka waxa loo ogol yahay qoliyaha masterka halkan waxa ka aragtaan xilliga uu dhacayo waa kan dadka la qaadanayo 2324 oo amaaragtay 2023 wuxuu ka dhacayaa 1 November maantana waa aragtaan date-ka dhowr maalmood baa ka dhiman marka waxaan ugu talagalnay inaad ka faa'iideysataan dhowrka maalmood maadaama dad badan ay naga soo codsadeen register here ayaan ku dhufanaynaa kadibna daaqada yarba ku soo baxaysa daaqadan waa ina aqbashid meeshaas ku dhufanaysa accept xagga hoose ku taala accept ayaa ku dhufanaysa accept mara ku dhufatid wuxuu ka rabaa ina macluumaadkan buuxisid accept waa halka ku yaala zip code kaagi waxaas ka doonaya laakiin meelaha qaar inagu zip code ma bahaysano saa ogtihiinba wax zip code ma lihiin so waxaan gashanaynaa telefoon iska caadiya ayaan gelin doonaa hadii alla idmo ka college-ka ayaynu hadaynu doono ku xareysanaynaa marka macluumaadkaas aad buuxinaysaa marka waad title-kaagu muxuu yahay ma Mr. ba ma Dr. ba Mr. ama Miss labada mid dooro haddaad doctor tahay oo maaragtay sideetidna samayso laakiin Mr. ayaan iska dooranaynaa first name-ka waxa ka soo qaadaa waxaan dhahaa Jaamac last name-ka waxa loo yaqaanaa Cabdiraxmaan iska dhe name-ka arabta jecesha in lagu yeero waxaan gelinaynaa Jaamac waliba block waxa fiican marka buuxinaysaan oo kale kaabis looga inaad daarataan Jaamac waa yahay halkan waxa gelinaysaan Cabdiraxmaan waa kan xagaas aad gelinaysaan halkan magaca jecesha in lagu yeero Jaamac oo kala ka dhigaysa pronouns-kaaga ma nin hadaa tahay waa kan waa he bas isticmaalaysaa kaas he iyo him iyo ka ay ku qoran tahay ayaa dooran doontaa marka dooratid kaasa ku dhufanaysaa email-kaaga gelinaysaa marka email aan haysanaa jira oo halkan inoo yaala email-kaas aan isna gelinaynaa meeshan waxaan kaloo ku buuxinaynaa marka email-keeni waxaa la dhahaa wax walba lastek@gmail.com waayahay additional email baa laga doonayaa oo hadii maaragtay additional email hadii loo baahdo kale lagu soo qoro so waxaan iskaga daranaa mid la yiraahdo Cabdixaliim 1 email dheeraada ayaad halkaa gelinaysaan hadeerba ogaada xabad email oo dheeraada additional email ayaa laga doonayaa in halkaa la geliyo kii hore wuxuu ahaa email-kii marka halkan gelisay waa kan waa confirm garaynaysaa waa kan halkan ku confirm garaynaysaa marka dhameysid halkan email-kii marka waad email-kaaga geli
marka labaad email confirm garee oo dib ugu soo celi isla isagii waa copy garayn kartaa inta saa haraysid ayaa copy garaynaysaa hadhowna paste ayaa lan ku dhihi doontaa then halkan aad iman doontaa waxaad gelinaysaa emailkaaga dheeraadka ahaa waa ka tegaysaa telefoonkaaga buuxinaysaa telefoonka asla isagii waa kusoo celin kartaa dhib ma lahan kadibna submit ayaan hoos ku dhufanaynaa submit baan dhahaynaa okay registrationkii wuu inoo dhameeyey wuxuu ku yidhi thank you waa diiwaan geliyey marka link ayaa lagugu dirayaa emailkaaga marka intan uu dhaho linkigii ayuu email kugu soo dirayaa so emailka ayaynu tegaynaa emailka markaan soo galnay gudihiisa waxaa arkaysaa do not replay kuwan waa passwordkaynu garan weynaan soo aan passwordkan ka bedelaynay waxaan ku dhufaanaa wakaa do not replay baa ku qoran kadibna dear jaamac cabdiraxmaan ayuu soo dirayaa kadib wuxuu ku weydiinayaa password halkan aan uga samaysanaa linkigaas usernamekeni waka addresskiina waka kanaan ku dhufanaynaa markaa halkaas maan ku dhufanaynaa linkiga yar maraan ku dhufano password baynu u samaysanaa marka password ma halkan gashan doonaa passwordka markaan soo gashano submit ayaan dhihi doonaa passwordka markaan kadib waxaa samaynaysaan emailka gala emailkii waa kan kuwan kale waxay ahaayeen waxaynu hubinaynay bay ahaayeen laakiin waka emailkii ay noo soo direen emailkaas aynu furaynaa linkigan ayaynu ku dhufanaynaa markaa linkigaas ayaynu ku dhufanaynaa waayahay linkiga markaan ku dhufano passwordkii ayaan u samaysanaa new password u samaystuu dhahayaa password cusub ayaynu markaa u samaysanaynaa okay waa kan markaa linkigii dhag baan siinaa linkiga passwordka ayuu leeyahay samayso emailka markaa gashaan passwordkaa samaysanaysaan passwordka marka xaraf weyn waa inuu ku jiro kow waa inuu ku jiro waa inay 8 xaba yahay xaraf yar waa inuu ku jiro waa inuu ku jiro tusaale ahaan passwordka mid yar mid weyn hal number waxaasoo dhan 8 midna waa inuu yahay ama 8 xaraf waa yahay waan gelinay kaas okay waan dhamaystirnay submit baan leenahay wuxuu yidhi passwordkan horey ayaa u isticmaashay so password kale ayaan gelinaynaa markaan dhamayno submit baan leenahay haddii passwordka hore u isticmaashay yeeli maayo halkan aan maraynay markaa informationkeeni waa kan waxaan kusoo daranaa date of birthka waxaad ka tirahaa 10 halkan aan soo furaysa October waxaan leenahay 20keedii confirmationka inta uun ku celi okay weli halkan waa khalad 22 baa ku qoran so let's change with kasoo qaad qof yar inuu xaraysanayo ama qof 1990 dhashay kasoo qaad okay waayahay haddii marka halka aadan ka dooranin tiro kaa yeeli maayo okay 10/10/1990 and then halkan waxaan gelinaynaa isna sidoo kale waxaan gelinaynaa isla datekii ayaan gelinaynaa okay waxaan leenahay waa 1990 halkana waa 10 ayaan leenahay bes waayahay wadanka markaa citizenshipka ka tahay waa Soomaaliya halkana waxaan leenahay miyaad haysataa marka dual haddii marka laba wadan a passport ka haysato ama aad muwaadin laba wadan ka tahay oo kale waxaad samaynaysaa waxa loo yaqaano yes baa dhahaysaa haddii kale wadankii ku dhahayaan sheeg marka no baan leenahay ano marka haysanaba kasoo qaad waxaan leenahay meesha ku dhalatay waa Soomaaliya gobolka sheeg way garanayaan awkaa Sool Gabiley Xaysimo xitaa ku jirta meeshan eeg xataa Xaysimo xataa waxaa ku jirta Saraar everything waxaa ku jirta Sool waxaa ku jirta all of these way ku jiraan marka Jubbaland Hawd Galmudug Gabiley all of these so Sool iska dhe kadibna halkan waxaa kugu yaala validate profile laakiin safe baan leenahay safe marka hore safe garayso haddii problem jiro waa arkaysaa halkan oo kale wuxuu ku leeyahay waxaa sheegtaa gobolka ayaa sheegaysa haddana iminka joogto waxaan leenahay waa Sool gobolkaasaan joognaa kadibna waxaan leenahay safe waan safe garaynaynaa markaan safe garayno marka waxaad ku dhufanaysaan haddana badhanka ku xiga oo ah validate profile ayaan ku dhufanaynaa validate profile ayaan ku dhufanaynaa maraan ku dhufano waan dhamaynay homepage-keena saanu aragno aan kan kusii dhufano marka
waa kan page-keenii waa dhamaysay viewda yar halka kaaga soo baxaad ku dhufanaysaa applicationkii baad markaa u diyaar garoobaysaa inaad bilowdid daaqadana kuu soo bixi doonta daaqadan waxaa ku qoran in progress submitted unsuccessful application iyo conditionally selected so haddii kan wuxuu ka lagu shaqayn doono kan maaragtay waa submitted under review waad gudbisay laakiin waa maaragtay review bay ku sameynayaan way eegayaan kan maadan guuleysanin kan waa lagu doortay afartaa badhan ka ugu horeeyaan ku dhufanaynaa ka ugu horeeya ayaan dooranaynaa ka ugu horeeya markaan doorano waa kan applicationkeeni markuu halka yahay waxaan ku dhufanaynaa my application baan ku dhufanaynaa my application markaa ku dhufatid waxaa ku dhufanaysaa linkigaan eega halkan linki baa idin yaala available open awards ayaan ku dhufanaynaa kadibna taasaa linkiga ku dhufanaysaa taa markaa ku dhufatid Soomaaliya halkan taala waa idinka arkaya Soomaaliya taala Soomaaliya ka codsanaynaa tusaale apply baan dhahaynaa marka taasaan codsanaynaa hadhowiyada ayaa automatic meeshayna u tagaysa iyadaan buuxbuuxinaynaa marka waatan su-aasha koowaad ee ku weydiinayo maxay tahay marka waatan are you a citizen of Chevening no will you return ma ku noqonaysaa waddankaagii yes sorry are you a citizen of Chevening eligible country yes baan dhahaynaa waddan Chevening ku maaragtay uu ogol yahay ma degan tahay yes halkan waxaan leenahay yes do you have an undergraduate degree maadaama master loo ogol yahay degree ma haysataa yes waxaad tirahdaa do you have minimum work experience started below 2 sannadood oo kale oo aad shaqaysay ma jiraan oo 2800 saacadooda yes waxaa jira ma jirtaa at least ugu yaraan 18 yes ma dhamaysatay undergraduate degree intaadan soo gudbinin applicationkaaga yes are you applying for a scholarship for a course of study commencing in the UK xilligaa bilaabmaya yes everything yes iska dheh submit dhe markaa submit baan dhahaynaa wuu wareegayaa markuu wareego oo maaragtay surveyga uu dhameeyo ayuu wuxuu inoo saari doonaa warqadan haddana halkan eega marka kuwan badankooda do you aspire to be ready to be or are you already a leader decision maker yes baan leenahay ma tahay British citizen no ma nihin waxaan leenahay have you previously studied in UK ingiriiska hadda hore waxugu baratay yes baa leedii kale no have you been employed in a permanent temporary or internship role since July 2020 ingiriiska ma ka shaqaysay tusaale ahaan ma lagaa shaqaylaysay shaqo joogto ah shaqo ku meel gaara ama internship maya waayahay have you any of your immediate relatives been employed by the above organization qof qaraabadaada ingiriiska ma laga shaqaalaysiiyey no baan leenahay tusaale okay haddii jirtana sheeg safe draft ku dhufo safe draft baan leenahay markaan safe draft dhahno waxaan ku dhufanaynaa submit okay markaan ku dhufano waynoo wareegayaa qaybti kale ayaan soo geli doonaa waa kan marka applicationku wuxuu ka kooban yahay gebigiisuba intanuu ka kooban yahay eega waa 1 of 5 kan tusaale kikooda backgroundka informationkaaga saygii la qorayay application informationka terms iyo conditionska upload documentska marka mid baanu dul istaagi doonaa ka ugu horeeyaan soo qabanaynaa halka ku yaala tusaale imika hadad abka ka baxdo oo kale ma application ku laabo ma application mara ku laabatid oo meeshii timaadid 1 halkaas 1 kuugu soo qormaya haddaadan weli apply garaynin maaragtay oo meeshii ku dhufanina 0 ba ku soo qormaya so mar walba oo hadhow dib soo gashid halkan geli kartaa log out baa dhahaysaa log out baan dhahaynaa imika waan ka baxaynaa hadda dib baan soo geli doonaa emailkaasaan kusoo galnay kadibna waxaan qoraynaa passwordkeeni okay passwordka markaan qorno login baan dhahaynaa haddii uu kaa khaldan yahay khalad ayuu kaa soo saaraya haddaba ogow laakiin mid ogaada meesha waa inaad tigta saartaan meeshii robotka am not a robot tigta saar haddii passwordka xitaa sax ku yahay marka hadda passwordka saa u gelisid passwordka ku dhamaystirtid oo halkaas oo kala gelisid halkaa tigta saar kadibna log in dhe waa marka aad maaragtay waxaagu ay sax abkeena dib ugu dhufanaynaa wakaas marka halka soo galno waad aragtaan waxaa inoo soo baxaya waxayna siinayaa ID wuxuu kalena siinayaa scholarship inaan nahay iyo applicationkii iyo dateka halkaas inagu soo qoraya open baan dhahaynaa marka open markaa dhahdid waa wax aad buuxbuuxsan kartid
cid uma baahna inaad la kaashatid moogtahay. halkan waxaa kusoo baxaya dhowr wax markaad meeshii open dhahdid. intan waa macluumaadkan buuxbuuxinay, laakiin halkan waxaa ku qoran preferred interview location, meesha aad rabto in interviewgu ka dhaco haddaad soo baxdid. meeshaan soo furaynaa, Moqdishaan ka dooranaynaa. emailkani waa kan, macluumaadkeeni kale waa kan. waayahay, halkan waxaa ku yaala educationkii, waa in waxbarashadaada kusoo dirtid. halkan waxaa ku yaala work experience-kaagii, khibrad inaad leedahay. haddaa shaqaysidna click ayaa siinaysaa. hal shaqo ayaynu ku dari doonaa, ad education baan leenahay. meelaha ka shaqaysa xataa halkan way ku jiraan, jaamacadihii ama haddaad waxbarashad wixii way ku jiraan. educationka waxaan leenahay undergraduate baan haysanaa. wuxuu odhanayaa wadankee tahay, Soomaaliya. waayahay, kadibna wuxuu ku odhanayaa confirm, taasaa ku dhufanaysaa confirm markaa dhahdid, halka wuxuu kaaga saarayaa jaamacadaad ka baxday sheeg. waa kan waxaan leenahay okay, jaamacadii Soomaaliya kuwaas. waxaan ku qoraynaa Nugaal, waxaan ku qoraynaa Elais, waxaan ku qoraynaa Banaadir, waxaan ku qoraynaa Hargeysa University. waa kuwan dhammaantood waa kuwaas. waxaan ku qoraynaa Puntland State University. every university halkay ku jirtaan. so waxaa kasoo qaadaa Nugaashaas oo kala dooro. datekii aa bilowday jaamacadda kasoo qaad waxay ahayd September 2007kii ayay ahayd. okay, kowdeedii waxaan dhameeyey baa leedahay tusaale ahaan dateka 2012kii September 20 okay 12 waxaan leenahay 13keedii. degreega a qaatay muxuu ahaa egma bachelor of maxay, hadduu yahay BSc oo bachelor of science ah, hadduu yahay BBA, hadduu yahay agriculture science, waa kan dhammaantood everything. hadduu BA yahay, hadduu BBA yahay, waxaa qaadataa sheegaysaa. marka badanka halkan waxaan soo qabsanaa BSc hadduu yahay maaragtay bachelor of science, kaad ahayd dooro. kadibna halkan aan teginaa subjectka kasoo qaad wuxuu ahaa computer, ahaa anything business, dentist, wax walba meesha kugu yaalaan. kii saxda ahaa dooro. engineering kaa ka baxday dee. kadibna iminka waxaan tegi doonaa xagga u sareysa, hadduu ku jiro computer science and IT baan iska dhahayaa. kadibna waxaan leeyahay course title-ku muxuu ahaa, kasoo qaad wuxuu ahaa waxa loo yaqaano computer science oo kale. haddaad iska dhahdid, hadduu ahaa security ama wax kale uu ahaana waa sheegaysaa. resultigaa keentay, natiijada a keentay halkana laga eegaa. GPA miyaa isticmaalaysay. dadka qaar waxay isticmaalaan jaamacadaha qaar grades kala duwan, 1 to 5, 5 to 1, qaarba waxbay isticmaalaan. so kuwa waxay isticmaalaan tusaale ahaan other baa dhigi kartaa. other haddaad dhahdid waa inaad sheegtid. haddii aad isticmaashid tusaale ahaan percentage oo kale waa inaad sheegtid. other haddaad dhahdidna sheeg bay ku odhanayaan. sheeg, halkan waa kan sheeg maxaad isticmaashaan. 100% baan isticmaalnaa. resultigaa sheegaysaa. kan ma qorayo, waxaan qorayaa GPA inaan isticmaalno. GPA-ga waxaan leenahay waxaan keenay 3.8 example. kadibna waxaan leenahay halkan dhowr wax inoo yaala. submit ha ku dhufanina. submit and add new waa dhihi kartaa. revise waa dhihi kartaa. submit and add new baan dhahaynaa. master baan ku daranaa, jaamacad master haddaad qaadatay ku darso. haddii kalena taa kaga tag. haddaad degree ta haysatid keliya, haddaad post graduate haysato ku dar, wadankaa ka qaadatay wixiiba. haddii kale iska xidh markaad kusoo darto. haddaad master haysatidna ku darso. saasoo kale leave baan leenahay. hadda ma kusoo darayo, ma arkaysid. si ugu soo daro refresh it, waa inaan refresh garaynaa. reload baan leenahay. reload, marka applicationkeeni ayaa dib noogu soo baxaya. halkanaan ku dhufanaynaa. maraan ku dhufano waa kan inoo soo baxayaa. okay, open baan leenahay. markaasaad arkaysaa in waxbarashadii lagu daray, laakiin educationkii hamoodin inaan lagu soo darin. haddii maaragtay aad arki weydo, eeg waa lagu soo daray. undergraduate oo taas jaamacadaad ka baxday, waxaad ka qaadatay. refresh garee keliya. work experience-kaaga hadda ma shaqaysaa baa lagu yidhi. yes baan leeyahay. kadibna waxaan leeyahay add work experience ayaan kusoo darsanayaa. then waxaan leeyahay ururka maxay u shaqaysaa. kadibna waxaan leenahay kasoo qaad waxaan ka shaqeeyaa Lastex kadaad rabtid. Lastex Academy. waayahay, maxaa ka shaqaysaa iminka. waxaan ahay teacher. okay, waxaan leeyahay confirm job title. okay, waayahay, waa kan. marka imisa wiigii shaqaysaa. saacadaha waxbaa xisaabinin, adigu just iskaga tag. waxaan leenahay waxaan shaqaynaa maybe 10 hours per week.
halkan waxba totalka adigu ha u xisaabinin dad ba halka arkay totalka xisaabinaya ha xisaabinina nooc maxaad ka shaqaysaa waxa fiican in halan ku dartaan part times ka dheh laakiin ogaada shaqooyinka ku daraysaan qaar voluntary ka dhiga voluntary so voluntary hadday yihiin shaqooyinka voluntaryga waxay ku fiican yihiin in lagu soo aqbalo ayay aada u sheegayaan kasoo qaad voluntary wey tani marka sharaxaad ka bixi tusaale waxaa leedahay I teach different courses in LASTEC Academy so geli such as basics of computer science marka responsibility-gaaga ayaa sheegaysaa soo arki maysid okay sectorka ay ka tirsan tahay ma public ba mise private waxaa ka dhigaynaa waxa loo yaqaano private way so haddaad rabto inaad ku darsatid waxyaalaha qaar waa inaad mid voluntary ka dhigtaa okay so waxaa saacadaha layska rabo badso saacadaha haddaad doontid saacadaha waa inaad kordhisataan oo 20 hours per week oo kale waa inaad shaqaysid shaqooyinkana yaro badso laftigooda kuwaa kasoo shaqaysay kuwaa ka tagtay waxaba so shaqo cusub baynu ku daranaa submit an add new baan nidhi shaqo kalean ku daraynaa kadibna waxaa kasoo qaadaa nugal okay Nugal University job titleka waxaan ka dhiganaa kasoo qaad lecturer meel kale haddaad haysato is okay waka okay marka waxaa leedahay confirm kadibna waa kan wuxuu ku weydiinayaa datekii xilligaa bilowday xilligaa u sheegaysaa dooro xilligaa maaragtay bilowday waa kan xilligana waa xilliga aad dhammaysay ama aad joogtidba ilaa right now iska dheh okay waxaad tirahdaa October waa kan okay waan joogaa iminka okay hourska shaqaysid waxaad tirahdaa 15 hours per week halkan waxbaa u xisaabinin sidoo kale saa u wad waxaad tirahdaa internship weeye ama part time ama wuxuun kale okay sharax baa lagu yidhi maxay tahay markaa intaa dhammaysid okay waa iska xidhi kartaa shaqadana saasaa ugu soo daraysaan dhowr shaqo kusoo dara shaqada markasay u muuqata laftigoodu waad refresh garaynaysaan mar walba refresh it markaa refresh garayso wuu kuu soo bixi doonaa refresh garee wuu kuu soo baxayaa marka applicationkiisa ugu dhufo kadibna waa refresh garaynaysaan okay markaa refresh garaysaan shaqadii waa ku darteen interview locationkii maan dooranin muqdisho dhe hoos ma usoo degaya ka shaqadiina wuu kusoo daray xabadii shaqada ahayd waqti safe draft baan leenahay waan safe garaynaynaa kuwa ugu muhiimsan baa idiin sheegi doonaa kuwa ugu muhiimsan waa kuwan essayga la qorayo essaygu waxaad u baahan tihiin inaad fahantaan qaabka loo qoranayo kow haddii qof aad u geyso is okay wuu kuu qori karaa waxyaalaha muhiimka ah su-aasha koowaad ku weydiinayaan waxa weeyaan dadka horta ay rabaan inay qaataan waa dadka future leaderska dadka hogaamiyayaasha mustaqbalka waayahay ay ka noqdaan wadankooda kale waxaa lagaa rabo kale inaad maaragtay sideebaa adigu maaragtay aad ku noqon kartaa ama aad ku maaragtay ahaan kartaa qofka noocaas ee wadankiisa hadhow maaragtay hogaamin kara clear examples baa lagaa doonayaa oo leadership iyo influencing micnaheed halkan waxaa la gelinayaa tusaale ahaan 100 erey baa lagaa doonaya inaad qortid ereyada isaa ku jirnay tusaale waxaa sheegaysaa shaqooyinka qabatay waxaa lead garaysay maaragtay waxyaalo badan oo problem caqabadaad xallisay so haddii xataa aad qof weydo just farsamooyin fudud baan idiin sheegayaa oo maaragtay laga yaabo inay caawiyaan translate-ka google-ka tag hadhow qof ingiriisiga yaqaan ha kaa saxsaxo tusaalehaan iminka google kuma xuma wuu fiican yahay laakiin xataa waxaa la tegi kartaan farsamooyin baran idiin sheegi doonaa waxaan ahay qof ku habboon waayahay booskan marka hadhowto ingiriiska adiga sababtoo ah ama scholarshipkiina waxaan okay soo qabtay howlo badan bulshadayda okay bulshadayda okay so I'm suitable person for this position because I have done a lot of work in my community halkan soo kobi karaysa kan laftiisa wordkaaga soo furo waxaa jira bahal la dhaho Grammarly oo aan dhowr jeer idinku yidhi kombiyuutarada kusoo shubta Grammarly kaa soo rogta isagaa idinka saxsaxaya waxaa qoraysaan oo dhan before you do something waa inaad soo download garaysatid anigu waxaan filayaa inuu halkan igu jiro Grammarlygu okay so Grammarlyga soo shubta waa kan get it is free waa soo rogan kartaan
wax kale kaama doonayo soo download garayso. Okay, later. Okay, marka Grammarly-ga waan soo download garaysan karnaa. Internet ka gal halkan ka soo download garayso. Waa kan halkan ka soo download garaysan kartaa. Waa kan, it is free. halkan gal soo download garayso. qof kasta marka waxaan doonayaa everyone has to download it oo ha ku soo shubto computerkiisa. haddii kale qof ha kaa caawiyo. soo fahmaysaan? qof ha kaa caawiyo. waa su-aasha koowaad. su-aasha labaad waxa weeye relationship building bay tani ka hadlaysaa. tii hore waxay ahayd leadership and influence, saameyntaada. su-aasha labaad waxay ka hadlaysaa waxa loo yaqaano leadership building and shared learning. Chevening marka waxay raadinaysaa bay leeyihiin qof strong professional leadership building skills leh, kaasoo maaragtay communitygiisa iyo wixiisoo dhan saamaan ku leh oo maaragtay hogaamin kara. marka adiga waxaa lagaa doonayaa inaad sharaxaad ka bixisid seebaad u dhisi kartaa relationshipkaaga marka loo eego professional capacity. marka see u dhisi kartaa maaragtay xiriir ka dhexeeya adiga iyo bulshadaada, maaragtay see saameyn ugu yeelan kartaa waxaa baratay, see u gudbin kartaa. all of this marka halan ku sharax. and outline why you have selected. marka 3 jaamacadood baad dooran doontaan. jaamacadaha maxaa ku dooratay? mid walba sharaxaad ka bixi. jaamacadaas waxbarashada ku fiican tahay, areadeeda wanaagsan, waxaasay leedahay wanaag sharaxdid. ka ugu dambeeya waxa weeyaan waxaa lagaa rabaa individuals baa lagaa rabaa kuwaasoo leh ma xirfada markay meesha dhameeyaan oo kale maxaad qaban doontaa, maxaad samayn doontaa, qorshahaagu muxuu yahay markaad dhammaysido jaamacadda. maaragtay aad dhammaysid longer term goals baa lagaa doonaya, career goals. maxaa rabtaa maaragtay inaad samaysid. waxyaalaha kale doonayaan waxaa kamid a waxyaalaha ay UK government ay ka sameynayso wadankaaga oo kale. sidee baad maaragtay ula xiriiri kartaa oo aad uga qayb qaadan kartaa oo aad qayb uga noqon kartaa. waxaasoo dhan bay lagaa doonayaa. marka xoogaa kelmada oo wanaagsan in halkan geliso aada muhiim u tahay. application information kan gelaynaa. jaamacadaha lagaa doonaya inaad dooratid. jaamacadaha aad dooranaysid halkan aad dhahaysaa ad university. mid baan idiin sheegayaa, waxaa jira meel halkan ku jirta oo magaceeda waxaa la yidhaahdaa, la dhahaa waa kan post grad baa la dhahaa. post gradku waxa weeyaan post grad. okay, magaciisa aan idiin sheego. okay, waxaa loo yaqaanaa, waxaa la dhahaa post grad. okay, postgrad bay dhahaan. postgrad.com wuxuu kaa caawinayaa every jaamacad wuxuu dhan baa ku jira. maxaad doonaysaa? search articles and courses, cyber security iskale, jaamacadaha bixiya ee ingiriiska oo kale. waayahay browse iskadhe, soo weydii, soo baadh. waa kuwan ma arkaysaa? so search baan leenahay cyber security courses. waa kan, so waa ka raadin kartaa. waa kan jaamacadaha halkan ka baari kartaa. waxaa kaloo muhiim ah aan idiin sheego, jaamacadaha markaad hadda intaadan applicationka wada gudbin inaa apply garaysaa fiican. jaamacad walba gal. what about kasoo qaad at university baan leenahay, jaamacad baynu kusoo dari doonaa. jaamacadda waxaan kasoo qaadaa inay tahay Bristol, taasoo kale Bristol University. jaamacadda Bristol waliba mid magac gaaban ba soo qaadana saan induso. Bangor University. confirm baan leenahay. confirm markaan dhahno wuxuu ka odhanayaa course-kii dooro ka odhanayaa. halkaan aan tegi doonaa. course-ki waa master. waxani master taught ah weeye, weliba biomedical, hebel kale, accounting, waxaad doonaysay, computing. waa kan dhammaantood waa kuwa. so waxaan dooranaa kasoo qaad computing kaasoo kale. rankiga ma 1 buu kuu noqonayaa mise 2 buu kuu noqonayaa? 1 ka dhigo. kan waxaa leenahay ma codsatay weli. haddaad codsatay ha, haddii kalena may. waayahay, haddii kalena I have applied baa leedahay and I'm waiting a decision. no baan dhahayna, maana codsan. miduun dooro marka. haddii maaragtay lagu soo siiyey conditional offer, haddii ku siiyeen ama unconditional offer waad soo sheegi doontaa. an unconditional offer haddaa codsatay, haddii lagu diiday, dhammaantood. okay, waxaan leenahay marka submit and add new. jaamacad kale kusoo dar. 3 jaamacadood baa lagaa doonayaa inaad meeshan kusoo darsatid si maaragtay jaamacad kala dooro. okay, jaamacaddii marka aan galnay halkan aan tegi doonaa google-ka. waxaan weydiin doonaa google-ka Bangor University admission. waa in iyada codsatid markaa. jaamacadda codsigeedii raadso. okay, jaamacadda codsigeedii ayaad raadsanaysaa.
jaamacadda codsigeeda raadsanaysa waa kan Bangor waka okay UK ba ku taala jaamacadda Soogal codso markaa waa ka halkan nagala soo xidhiid waa kan marka application kaaga international students kooda waa kuwan application waad apply gareyn kartaa waa kuwan how to apply baad eegi kartaa and when to apply okay all of this markaa gashid jaamacadii apply garee saddex jaamacadoodba waa ina apply gareysid intaa waxaan kaga gudbinaa marka waxbarashadii immigrationka su'aalahan ay ku weydiinayaan jaamacadii markaa ku dadid refresh garee jaamacaduhu ma soo galayaan hadii kale markaan refresh gareyno ay jaamacadii soo galayaan haddar ba intaa fahma marran waa idin sheegay applicationkan dib u soo geli doonaa markaan dib usoo galo waxaa arki doontaan in jaamacadihii lagu soo daray marka essayga si fiican isaga qor marba mid qeyb qor qof yaqaana maaragtay u geysa hadaa rabtid ama adigu samayso macmuco waxaaga qofa kaa soco hadduu doon markaad ingiriisiga qorto dad badan oo ingiriisiga yaqaanaa jooga adiga laftaada try isku day waxaynu maraynaa applicationka waa hal jaamacad baa ku jirta anugu apply garaynay oo rankigeedu weyn yahay halkana soo gelaysaan laftigeeda maxaad rabtaa inaad u baratid course areadaadu maxay tahay waa halka waxbarashada ka hooseysa course and subject area ku qoran halkaas soo furaysaan marka kasoo qaad computer baan ka baaraynaa ama artist ama technology kuma jirto hal xabo laakiin technology oo kale haddaad rabtid inaad dooratid saas oo kale u dooranaysaa ma human rights ma business maxaa dooni waa kuwa so anu waxaan doonaa kasoo qaad technology ama mid kaleba marka su-aalahan ku weydiinayaa wani passport ma haysataa haddaa passport haysatid yes kuwan oo dhan marka passportka ID-giisa baa lagaa doonayaa haddaad do you have refugee status ma haysataa haddii maaragtay aad qaxoonti Uganda ama wadan kale ama Kenya aad kasoo qaadatay yes baad haysaa haddii kale no waayahay do you hold any form of legal residence hold any other form wax kaloo aan passportka ahayn wadan kale haddaad degan tahay tusaalaan maaragtay Ethiopia ama Uganda ama Turkey meeshaad degan tahay no baan dhahayaa haddaad degan tahay haysato ha yes dheh haddaad yes dhahdid wuxuu kaa rabaa inaad soo gelisid which country baad ka haysataa buu ku dhahayaa no baan dhahaynaa ingiriiska hore ma u tagtay no haddaad tagtay yes baad gelinaysaa do you have valid UK visa or permission ma heli kartaa taa yes baad dhahaysaan marka no de sorry hadda visa kama haysatid ingiriiska sorry taas kuma jirto have you ever been refused ma lagu diiday visa wadanun ma lagaaga diiday no iska dheh have you been deported removed or otherwise required to leave any country wadan ma lagaa tarxiilay ku doona ha noqdee no iska dheh waxyaalo ku qabanin wax criminal ma leedahay convictions maartay waxyaalo dambiyaad ku kacday waxaas ma jiraan no waxaa leedahay have you ever been arrested or uncharged with any offense no ma lagu xiray ma lagu soo eeday waxaas no kadib waxaan dhihi doonaa safe draft submit to Jeevan hadihin safe draft inta markaa dhamaysid waad save gareynaysaa markaa save gareysid oo inta aad iga soo dhamaystirtid timeska conditionskaygu iska fudud yihiin intan oo dhan yes baad ku jawaabaysaa yes waa badhankan terms conditions wadankaaga ma ku noqon surveyga ma ka jawaabi waxaan ma samayn yes baa leedahay wuxuu yidhi wadanka inaa maaragtay saas oo kale all of this yes kanoo kale shuruudaha lagaa rabaa waa heshiiskii haddaa heshiiskaa dhow ka baxdo aday kuu taallaa kanaa ku hor yaalla yes dabada u qabo okay kan waxaa yaala application informationka waan sheegnay kana waan sheegnay upload documentski baa lagaa rabaa haddaba ogow waxaa lagaa doonayaa documentski do you consider yourself to have disability haddii maaragtay il la-dahay lug la-dahay waxba orin nabar kugu yaalo weyn ama wax kale yes haddaad disability leedahay haddii kale no iska dheh wuxuu yidhi do you require a specific arrangement no iska dheh wuxuu yidhi please state your gender waxaan leenahay man ama woman dee mid un balaayadan kale waxyaalo kale ku qoran non-binary ma sheegayo waxaas maha man ama woman ka adugu tahay de okay waxaa kaloo jira ma tahay dadka minority-ga wadankooda kuwa dadka la yaso oo kale iyo ama maaragtay dadka aan shaqooyinka badan qaban karin ee laga riixdo iyo dadka yaro hoose dabaqada ku jira noocaasa oo la yarayo simaa ku jirta no ama yes waayahay haddaa ku jirto yes dheh haddaa yes dhahdid sharaxaad bay kaa rabtaa maxaa lagugu maaragtay reasonkaas yes u dooratay su-aasha ku xigta waxa weeye do you currently live in ma ku nooshahay wadankaaga caasimadiisa yes iska dheh okay oo magaalo kale ma ku nooshahay where do you haddaa xaggaad ka maqashay meelun iska dooro online-kaan ka maqlay facebookan ka maqlay
waayahay soo soco waxaa lagu leeyahay intee sanaad apply garaysay dad hore apply garaysay yes haddii kalena waxaa leedahay maba apply gareen less than 1 year maxaa ku dooranaysaa sababta aad Chevening ku dooranayso maxay tahay kanoo kala dooro waa publicityga advice waa kan dhowr iska dooro kaasoo kale iska rabad arabtid kuwan waa iska maaragtay termski conditionski sanado hore ma apply garaysay no oo kale maaragtay scholarship have you considered applying for any other scholarship no okay hadday saa tahay halkan waxaa lagaa rabaa educationkaaga wax alla waxaa barasha haysatay jaamacadda shahaadadeedii iyo transcriptigi halkana soo gelinaysaa waxaa dhahaysaa upload kadibna computerkaaga kasoo qaadaysaa saas u wareegayaa kadibna maxaa la sameynayaa halkan waa lagu soo jiidayaa halkan markaa saa u tiradaan drag buu ku leeyahay ama folderka yar ku dhufo folderka yar baa ku dhufanaysaa eega markaasaa soo gelinaysaa markaad soo gelisa kanoo kale open tirahdid halkaasoo kale soo gelayaa waka uu qaadanaya wuxuu ku leeyahay education waka transcript iyo wuxuu raacinayaa userka ID-giisi ay ku siiyeen kadib waad iska xidhi kartaa halkan mid kale kusoo dari kartaa marka mid kale ku darayso halkaasaad gelaysaa saaxiibayaal halkaasaad gelaysaan waatan kaasaa ku dhufanaysaan ma haysataa jaamacad conditional offer ah ma haysataa unconditional offer haddaa haysataha referencega waa muhiim halkaas waxaa ku jira referencega qof ayaa kasoo qoranaysaa marka waraaqaha referencegu halkan waa muhiim marka referencega qof aa kasoo qoranaysid internetka gal qofku waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo reference kuma qori karo waa kan dhibaata haysata saan ku weydiiyo laakiin referenceska halkan waxaa ku qortaa google-ka waa laga helay iyagoo buuxa badbedelo waxaa qorataa reference templates ama recommendation letter templates qoro okay recommendation letter templates baa qoranaysaa waa kuwan iyagoo badan bay internetka yaalaan qofka magaciisa qoraysaa kuwanaaba ku tilmaamaya kanoo kale soo gelaysaa kanoo kale markaa soo geshid wakaas kanoo kale soo gelaysaa halkan waxaa kugu yaala markaa waraaqo badan qofka magaciisa am waiting intanoo kale badbedelo kuwan lagama xigo magacaaga ku badbedelo employee name waa kan wax yar ka bedel af ingiriisiga soo qaado wordka la tag right click c kelmadahan bedel qaarkood marka waxay ka caawinaysaa waxa la yiraahdo inaad recommendation letter fiican qoratid ay ka caawinaysaa marka weliga internetka la gala waa boqolaal ma hal mar kaliya aad bay u tira badan yihiin halkana si fiican baad ugu aragtaan mid kaliya inta soo copy garayso midba in bay ku eg tahay tusaale kanoo kale intanu ku eg yahay kanoo kale intanu ku eg yahay waka markaa wax soo download garaysan kartaa intan saas oo soo qaadanaysaa kadibna waka kadib soo copy garayso wordkaaga la tag badbedelo qofka kasoo saxeexo hadhowto telefoonkiisa qofka weliba waa lagu qoraa halkan waa kuwan kugu leh igala soo hadal halkan reach me at telefoonka kale waa la geliyaa ama emailka qofka xagga hoose laga qoraa marka kaana waa samayn kartaan okay marka xabadsan balana waxaan idiin soo gelin doonaa telegramka waa inaa haysataan aad kusoo biirtaan marka qofka recommendationka ayaa halkan soo gashanaysaan recommendationka halkaas kusoo tuuraysaan recommendationkii passportga faladhaas ku dhufanaysaa kusoo shubaysaa isna faladha yar baad furaysaa haddaa rabto kusoo jiidaysaa waxyaalaha kale muhiimka ah waxaa ka mid ah halkan aad soo gelin kartaan feedbackgaagii user friendly ma yahay systemka iyagu very satisfied kuwan iska dhe ama satisfied iska dhe su adiga kugu yahay okay iska dooro waa kan additional comments wax dheeraada ma ku daraysaa markaa dhamayso yes ba iska dhahaysaa kadib waxaa leeyahay save draft marka waxaasoo dhan aad kusoo shubtid ee aad gebagabaysid ee aad dhammaan condition letterski wixiiba aad dhamaysid waxaad odhanaysaa waxa loo yaqaano waxaad gelinaysaa submit to Chevening baa leedahay haddaad qaybo ka tagtay isaga ayaa kuu sheegi doonaa marka saaxiibayaal casharkeena aanu ku talagalnay qaabka loo xareeyo Cheveningku waa intaas oo degdeg ah marka waxaan rajaynayaa in asxaab badan maaragtay xareysan doonaan la kaashan doonaan maaragtay recommendation letterska macallimiintoodii xiisadaha u dhigi jireen waxay u dhigi jireen marka see loo qortaa recommendation letter YouTube ka raadi hadda qoro diyaari markaad shay bilowdo ayaad dhamayn kartaa marka waxaan isleeyahay inahaasa ugu muhiimsan jaamacadaha si apply gareeya way fudud yihiin marka waxaan ku celceliya finally you will get it waxaan idin rajayn doonaa maaragtay guul iyo wax wanaagsan iyo inaa heshaan. Assalaamu calaykum.